magaaladan dhibaa gaaray sida deegaanadii kale khawaarijta ay joogaanba ay dhibka la qabtaa ayada waxa u sii dheer guriyadeedo nabad qaba ayaa la gubay ciidankan howlgalka ka soo bilaabay Sabiid ee halkan yimid idinka idin imaadeen waxa la rabaa halkan waa gurigoodi diin guri loo gubay waliga maarad ya diin waligeed maarteen war waxaan waa diina ma ahane waa dadkan niman mujrimiin ah oo mooryaan ah oo diinta suurad xumeeyo oo dhaalimiin ah intii awdeeg la degmooyinka kala dhan waa nooga duwan tahay saan hore u sheegay shacabkeeda waa shacab nabadeed aan ciidanka ka qixin deegaankooda ka cararin geesiyaal ah mar walbana dawladda u dhow magaaladan dhibaa gaaray sida deegaanadii kale khawaarijta ay joogaanba ay dhibka la qabtaa ayada waxa u sii dheer guriyadeedo nabad qaba ayaa la gubay annaga waxaan idin kala shaqeynaynaa biidinillaahi tacaala annagoo isku duuban dawladda koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu hogaaminayo iyo golihiisa wasiirada iyo ciidamadeena qaranka Soomaaliyeed ee halkan joogaba in deegaanadii guriyihii la gubay dib u dhiskooda ay idin kala shaqeyno guddi oo shacab oo hormuud u ah dadka deegaankan ka soo jeeda culimada leh ganacsatada leh odayaasha dhaqanka leh iyo maamulkana aan u xil saari doono hadii Ilaahay midda labaad ciidankan howlgalka ka soo bilaabay Sabiid ee halkan yimid idinka idin imaadeen waxa la rabaa halkan waa gurigoodi inaysan dareemin meel cidla ah ciidan muxuu ka sameeynaa dadka loo imaaday waa idinka kuwii dhintay inta hawshan lagu soo jirayna idinka dartiin ay u dhinteen kuwa nool ee halkan idinla joogana idinka dartiin ay u imaadeen waxay idinka kicinayaanna waa cadow Soomaaliya oo dhan lagu soo imtixaanay wareersan adiga waliga ma aragtay diin sootii anaga garanayno nagu dhalay abka ab Soomaaliya dadka hata diinta la soo gaarsiiyay ma waa dadka ku dhashay ya diin duur la galay waliga ma aragtay diin guri loo gubay waliga ma aragtay ya diin waligeed ma aragtay war waxaan waa diina ma ahane waa dadkan niman mujrimiin ah oo mooryaan ah oo diinta suurad xumeeyo oo dhaalimiin ah oo ummadda nolosha u diidan dalkan iyo deegaanadan lagu soo imtixaanay waaye kaliya waxaan kaga guuleysan karnaa marka waa midnimo midnimada waa laba la isku daray marka mid waa kuwan ciidankan qaranka halkan taagan hubkooday wataan adowgaas inay idinka qabtaan ay diyaar u yihiin maalin habeen meesha ku arkaan inay ku dilaan ay fasax u qabaan midna maxaa waay kii soo arko aan hubkaan haysan inuu asagana soo sheego